السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا وما سنتين ما أنت جمعة وناكسن يعني ذي لا هاي وانا سجال كبيش جانوري كوبات سنة كلا بدو كون اللحية لباتنك مقال كان محاربة إن ندي كله وذاقه عسكري كتر سنة إذا مدى آيس أربعة قبل عدان كهيد كود لي مينيابوليس ومجا عيسى لشاعيي وحجر تيد عذاك له وبشي لحد السنة كيهورة إسلا قبل كمينيسوتا إسلا نينكاسي كل دعدي وان إدلا وذاقيا dhacdadaasi sidoo kale maxay tahay magaalada Portland ee gobolka Oregon shalayna ciidamada ICE ayaa laba nin oo ay ku sheegeen in wadanka Venezuela ay ka yimaadeen wadankana sharci darro ay ku joogeen kana mid ahayeen kooxaha gaangiska ee Trenta de Aragao la yiraahdo ay halkaasi ku dhaawaceen arrimahaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya gobolka Minnesota maxay ka leeyihiin in dowladda federaalku ay u diiday baaritaanka dilkii gabadhii askariga ICE-ka in gobolka uu ka qayb galo maanta maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa shir jaraa'id qabtay xeerlaaliyaasha degmada Hellebeen iyo waliba xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota iyaguna shir jaraa'id ayay sidoo kale qabteen marka arrimahaas ayaan idila socodsiinaya balse marka hore soo dhawaada in wasaaradda amniga gudaha ay warbaahinta u diiday in magaca askarigii ICE ka tirsanaa ee arbacadii gabadhii cadaanka ahayd ku dilay magaalada Minneapolis in ay la wadaagto warbaahinta laakiin warbaahintu dhankooda ayay baaritaan ka sameeyeen marka ninkaasi ayaa la baaray maadaama wajigiisa la arkayay warbaahintu baaritaano kala duwan ayay ku sameeyeen waxa la soo helay kiis maxkamad gaaray oo bishii lixaad ee sanadkii hore isla Minneapolis ka dhacay shil uu isla ninkan uu ku lug lahaa gabadha dilay arbacadii ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Jonathan Ed Ross waa 43 jir Ciraaq ayuu ka soo dagaalamay intii u dhaxaysay 2004 ilaa 2005 waxaa sidoo kale uu qabaa gabar soo galooti ah oo wadanka Philippines ka timid oo caruur u dhashay marka ninkan waxaa ciidamada xuduudaha ilaaliya uu ku soo biiray sanadkii 2007 waxa la leeyahay marka waxa uu ka tirsan yahay qaybta xaaladaha degdega ah ka jawaabta ee ciidamada ICE waa askarta sida gaarka u tababaran ee xaaladaha degdega ah ka jawaabta ayuu ciidamada ICE ayuu ku jiraa waxay leeyihiin ciidamada ICE waxa uu ku soo biiray sanadkii 2013 marka waxaan ognahay wasaaradda amniga gudaha ayaa ciidamada xuduudaha iyo kuwa ICE ba wasaaradda amniga gudaha ayay hoos tagaan meelaha qaarna waxay sheegayaan in sanadkii 2015 oo ciidamada ICE uu ku soo biiray marka ninkan waxa jirtay in dhacdo kale oo Minneapolis ka dhacday bishii June 17 gaar ahaan Bloomington Minnesota oo ninkan uu ku lug lahaa waa halka laga soo helay ninkan magaciisa iyo sidoo kalena inuu xitaa marqaati kiiskaasi ka ahaa waxa jirtay in ciidamada ICE nin wadanka Guatemala ka yimid oo magaciisa la yiraahdo Roberto Carlos Munoz ay ku istaajiyeen light oo traffic light ah isla markaana ay sharcigiisa iyagoo weydiinaya ninkan sida aad aragtaan gabadha dilay oo hadda magaciisa Jonathan Ross lagu sheegay in daaqada darawalka uu madaxa la galay si uu ula hadlo ninkan ay istaajiyeen markaas kadib darawalkii ninkan oo Jonathan Ross oo ICE ka tirsan oo gaarigiisa madaxa daaqada kula jira ayuu gaarigii dhaqaajiyay ilaa iyo 100 tallaabo ayuu jiidayay marka ninkan askariga oo ka tirsan ciidamada ICE dhaawacyo kala duwan ayaa gacmaha ka soo gaaray markaas sida sawiradan ka arkaysaan oo xitaa laga daweeyay waxa la leeyahay 33 qodob ayaa laga tolay in gacmihiisa oo dhaawacyadaasi kala duwan ay ka soo gaareen isbitaal ayaana loola dhigay marka waxa dhacday in maxkamad la isla tago oo ninkii markii la xiray oo sharci darrada Guatemala oo askarigan ICE ka tirsan oo hadda gabadhaas cadaanka ah dilay in Renee Nicole Gooder bacdi in maxkamad la isla tago maxkamadii marka sida aad ka aragtaan waraaqihii affidavit-ka marqaatiga koobaad ayuu ahaa magaciisa ayaa ku qoran ninkana waa ninka oo askarigan jiiday ICE oo gaarigiisa ku jiiday ilaa 100 tilaabo ilaa markii dambe uu ka soo dhaco markii dambena ninkii waa la qabtay oo maxkamad ayaa la isla tagay marka ninkan waa askari oo veteran oo ruugcada ah Ciraaq ayuu ka soo dagaalamay 2004 ilaa 2005 ciidamada xuduudaha 17 sanadkii 2007 ayuu ku biiray marka ciidamada xuduudaha sanad ilaa iyo sanadkii 2007 markuu ku soo biiray waxa uu qaabilsanaa ay ciidamada xuduudaha dhinaca El Paso Texas jooga marka ciidamada xuduudaha waxa uu qaabilsanaa in uu u basaaso oo basaas u noqdo sida kooxaha daroogooyinka soo gelinaya Mareykanka oo Mareykanku ula dagaalami lahaa waxana ICE uu ku soo biiray sida aragtaan 2015 meelaha qaarna 2013 inuu ku soo biiray ayaa qoran marka askarigan sida muuqata waa askari ruugcada ah oo ciidamada xuduudaha iyo kuwa ICE ba isku soo maray waxana la leeyahay waxa uu ka tirsan yahay special response teamka marka xaalad ay dhacdo ICE
ciidamada sida gaarka u tababaran ee ka jawaabo ayuu ka mid yahay. marka hadda waxaa sidoo kale soo baxaysa in dowladda federaalku ay u diiday gobolka Minnesota baaritaanka dilkii Arbacadii dhacay oo gabadhii cadaankeeda oo ninkan u geystay in ay gobolku uu qayb ka noqdo. Shalay waa kii gudoomiyaha gobolka ka hadlay. Maanta marka waxaa shir jaraa'id qabtay luqa magaalada Minneapolis Jacob Frey. Waxa uu yiri masiibo markay dhacdo waxa kaliya oo loo baahan yahay waxa ay tahay in hufnaan la muujiyo, laakiin ma ahan in sharciga la qalloociyo. Muhiimaddu waxay tahay in sharciga la raaco. waxa uu yiri wasaaradda cadaaladda wasiirkeeda Pam Bondi iyo maamulka Trump isla markiiba conclusionka ama go'aanka ay gaareen waxa ay tahay in gabadhan ay qaldaneed oo askarigan ay doonaysay in gaarigeeda marsiiso, askarigana uu istifaacay. laakiin waxa uu yiri Minnesota horey waxa uga soo dhacay dambiye kala duwan, gobolka Minnesota isaga ayaa baaray. waxaa jirta qayb gobolka Minnesota u qaabilsan dambiyada dhacay inay baaritaan ku sameeyaan, waxaana la yiraahdaa Minnesota Bureau of Criminal Apprehension. marka waxa uu yiri waa in qayb laga geliyaa baarayaasha ruugcadayaasha ee ka tirsan waaxdaasi gobolka Minnesota in arrintan ay baarista ay qayb ka noqdaan. marka gobolka Minnesota sida muuqata waxa uu doonayaa in uu qayb ka noqdo baaritaanka dilkaasi lagu sameeyo, laakiin dowladda federaalku ilaa iyo hadda waa ay u diidan tahay. marka waxa uu yiri haddii aan waxba la qarinaynin oo la doonayo runta in la ogaado waa in gobolka Minnesota uu baaritaankan uu qayb ka noqda. bal isagoo arrimahaasi ka hadlayayna kale gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz waxa uu heegan geliyay ciidamada ilaalada qaranka maadaama mudaharaadyo xoogan ay socdaan oo hadda Portland ay ka bilaabeen oo arrinteeda aan idala wadaagi doono. Minnesotana habeenkii labaad ama maalintiisa labaadba ay ka socdaan in haddii xaaladdu ay kasii darto ciidamada uu heegan geliyey oo haddii loo baahdo si degdeg ah Minneapolis loogu soo daadgurayn karo. dhinaca kale waxaa shir jaraa'id iyaguna maanta qabtay xeerlaaliyaha degmada Hennepin oo halka dhacdadu ay ka dhacday ah iyo sidoo kalena xeerlaaliyaha guud gobolka Minnesota. xeerlaaliyaha degmada Hennepin Mary Moriarty ayaa la yiraahdaa, xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota waa Keith Allison. marka waxay yiraahdeen waxa aan ka cabsanaynaa in natiijada ka soo baxda baaritaanka aysan dowladda federaalku la wadaagin xafiisyada xeerlaalinta midka gobolka iyo weliba midka degmada. waxaana sidoo kale xeerlaaliyaha gobolka Minnesota Keith Allison oo ka codsaday shacabka qof kasta oo muuqaal la xiriira dhacdadii gabadhaasi askariga ICE uu ku dilay Arbacadii in uu la soo wadaago oo ay u baahan yihiin haddii muuqaalo kale ay jiraan in ay helaan. marka muuqaalo fara badan ilaa hadda waa la hayaa, laakiin waxaa laga yaabaa dhowr angal oo kala duwan muuqaalo laga duubay inay jiraan. marka Mary Moriarty oo xeerlaaliyaha degmada Hennepin waxay tiri xafiiska FBI-da ay ku leedahay gobolka Minnesota xiriir wanaagsan oo qoto dheer ay horey nooga dhaxayn jiray marka ay arrin dhacdo in laga wada shaqeeyo baaritaankeeda. laakiin hadda arrintan sida muuqata waxay tiri waxay FBI-du baaritaanka ku koobeen iyaga oo kaliya, marka ma doonayaan xafiisyada kala duwan ee gobolka Minnesota in ay qayb ka geliyaan. waxay leeyihiin arrintaasina ma ahan arrin aan u dulqaadan karno. dhinaca kale shalay magaalada Portland ee gobolka Oregon dhacdo kale oo ICE ay ku lug leeyihiin dad ay ku toogteen ayaa ka dhacday. waxaa la yaab leh meesha gabadha cadaanka ah lagu dilay ee Minnesota waa 34ka iyo wadada la yiraahdo Portland. haddana shilkan waxa uu ka dhacay magaalada Portland ee gobolka Oregon. waxay ciidamada ICE ay sheegeen qoraalkan ay soo saareen wasaaradda amniga gudaha ay sheegtay shalay saacadu markay ahayd 2:19 ciidamada xuduudaha ilaaliya ayaa wax oo sameynaya baaritaano gawaari in magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa qof passenger ah waxa uu Venezuela ka yimid isla markaana sharci darro ah xiriirna la leh kooxaha muqaadaraadka ka ganacsada ee Trenta de Aragao, isla markaana mas'uuliyiinta kooxahaasi Trenta de Aragao ka mid isla markaana haweenka xitaa jirkooda ka ganacsada ayaa toogashadaasi qayb ka ahaa. marka waxay sheegeen in darawalka gaariga waday oo la rumaysan yahay inuu xubin ka mid ahaa kooxahaasi gaangiska oo Trenta de Aragao la yiraahdo in shakhsiyaadku markii ay aqoonsadeen isla markaana ay isku sheegeen gaarigana dad kale ay la saarnaayeen oo gaarigiisa hub ahaan uu doonayay inuu ciidamada ugu isticmaalo isla markaana uu dul maro. sidaa darteedna ciidamadu waa isdifaaceen oo risaas ayay direen sida qoraalkan afayeenka wasaaradda amniga gudaha Tricia McLovin ay ku sheegtay. marka mas'uuliyiinta gobolkuna hadda gobolka Oregon arrintaasi waa ay ka hadleen, baaritaan ayaana haddana FBI-du ay ku wadaa, iyaga ayaa si gaar u baaraya. laakiin labadaasi qof ma aysan dhiman oo waa ay dhaawacmeen, markii dambena booliska ayaa yimid oo isbitaallo ayaa la geeyey. marka labada dhinacba marka hadda magaalada Portland ee gobolka Oregon iyo Minneapolis ba mudaharaadyo ayaa ka socdo, waxaana laga cabsi qabaa in gobolada Mareykanka ay ku sii faafaan mudaharaadyadaan ayna looga soo horjeedo. ICE waxaa la leeyahay ilaa iyo bishii September ilaa iyo 9 qof ayay toogteen
marka bishii September ee sagaalada ee sanadkii hore laga soo bilaabo ilaa iyo 9 qof ayay toogteen marka waxaa muuqata hadda inay caadaba ka dhigteen in dadka iska toogtaan ama dhimasho iyo dhaawac ay markaasi ay dadku ay noqdaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo